madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa wacd ku maray in uu tallaabo ka qaadi doono wargeyska fadhigiisu uu yahay wadanka Faransiiska ee la yiraahdo Charlie Hebdo. wargeyskan ayaa dhawaantan waxa uu daabacay sawir lagu aflagaadeynayo madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. sawirkaas ayaa waxa ka muuqanaya madaxweyne Erdogan oo markaas dharka ka qaadaya ama ka feedaya haweeney xijaaban sida markaas sawirka ka muuqanaysa. Erdogan ayaa hadalkaasi si weyn uga carooday isagoo uu sheegay in wargeyskaasi uu si adag u tallaabo uga qaadi doono. waxa uu Erdogan hadalkiisu uu markaasi ku tilmaamay in aan waxaas oo kale loo dulqaadan karin isla markaana wargeyskaasi uu mutaysan doono ciqaab adag oo aan naxariis lahayn ayuu yiri madaxweynaha wadanka Turkiga. warbaahinta dalalka Turkiga iyo Faransiiska ayaa iyaguna durbo waxa ay ku biireen dagaalada markaasi u dhaxeeya madaxweynayaasha Faransiiska iyo Turkiga. Rajab Tayyip Erdogan iyo Emmanuel Macron ayaa hadallo kulkulul isweedarsaday toddobaadkii aan ka soo gudubnay. Erdogan waxa uu sheegay in wadanka Faransiisku ku ciyaarayo waxaan la aqbali karin. Emmanuel Macron oo isaguna si weyn hadalka Erdogan uga carooday ayaa waxa uu sheegay in Turkiga uu sameynayo waxaan aad u foolxun oo isla markaasna ka baxsan qiyamka dawladnimada sidoo isagu sheegay. dalalka Turkiga iyo Faransiiska ayaa sanadihii ugu dambeeyayba waxa si xumaanayay siyaasadda arrimaha dibadda labada wadan. Erdogan dhawaantan waxa uu sidoo kale shaaca ka qaaday in madaxweynaha wadanka Faransiiska Emmanuel Macron uu xanuunsanayo isla markaana uu qabo cudurka dhimirka ayna tahay in uu tago meelaha lagu daweynayo dadka qaba cudurka dhimirka. Emmanuel Macron ayaa intaas wixii ka dambeeyay waxa uu yeertay safiirkii u joogay magaalada Ankara waxaana hadda muuqanaysa in labada dal uu gaaray khilaafkooda mid aad u sareysa. labada dhinac waxa ay ka tirsan yihiin urur weynaha NATO oo Mareykanku uu qayb ka yahay. reer galbeedka ayaa labada dhinac uga baaqay inay isdejiyaan.